مدن مدحويني maanta waxaan noo sharafa inaad ka soo qayb gasho xafladii dufcadii shanaad ee qalin jabinta maxadka shaqaalaha dawladda barnaamijyada jaamacadda darajada koowaad ee digriga loo yaqaano waxaa halkan inoo fadhiya arday tiradoodu dhan tahay 214 isla markaana ah shaqaale dawladeed oo 50 ka mid ay yihiin haween kadib markii ay dhamaystirteen dhammaan shuruudihii looga baahnaa barnaamijyada digriga ee maxadku bixiyo kadib markii ay ansixiyeen guddiga tacliinta ee maxadka isla markaana ay u soo gudbiyeen guddiga sare ee maxadka kadib markii aanu garanay in ay tahay xilligii ay qalin jabin lahaayeen waxaanu maanta halkan aanu xaflad qalin jabin ugu marti qaadaynaa ama ugu casuumaynaa ardayda ah 214ka ee shaqaalaha dawladda isla markaa ah oo aanu filayno inay wax ka bedeli doonaan qaabka dawladdu u shaqeyso ama ku soo kordhin doonaan adeegyo dheeraad ah maxadka waxaa la aasaasay sanadkii 2005 xilliga wuxuu ku bilaabmay mashruuc ay dawladda Soomaaliland iyo hay'adda UNDP isla hawlgeliyeen waxaad bixin jiray kharashka maxadka ku baxa hay'adda UNDP 100% laga bilaabo 2005 ilaa 2007 2010kii madaxweyne marka ay xukuumadani la wareegtay talada dalka dawladdu waxay maxadka kharashkiisa bixin jirtay 9% maanta waxaa sharaf noo ah inaanu halkan ka iclaamino in sanadkii 2014kii ay xukuumaddu la wareegtay dhammaan miisaaniyaddii maxadka waad garan kartaan marka aad hay'ad ka sugayso wax iyo marka aad miisaaniyadaadii adigu aad ka soo gurtay shacabkaaga ee ahayd cashuur bixiyaha aad dadkaaga wax ku barayso labada farqi ee u dhaxeeya dadkani waxa weeyaan madaxweyne shaqaalihii dawladda oo ay ku jiraan cashuur ururiyayaal oo ay ku jiraan madax qaranka ka mid ah oo ay ku jiraan xildhibaano oo ay ku jiraan taliyayaashii ciidamada kala duwanaa oo wax ku bartay oo ku aflaxay lacagtii cashuur bixiyaha ilaa 2010kii oo markii ugu horeysay shanta dufcadood ay qalin jabiyaan waxa maxadka ka qalin jabiyay tiro arday ah oo isla markaana shaqaale dawladeeda oo tiradoodu dhan tahay 789 oo ay 136 ka mid dumar yihiin waxaynu wada ognahay oo inoo sheegi doonaa guddoomiyaha hay'adda shaqaaluhu in tiradii shaqaaluhu ay 3 jeer in ka badan korodhay 5 sano aad xukunka haysay intaa in la mid ah iyo shaqo abuurka iyo dadaalka maxadka isna wuxuu u taagnaa in kor loo qaado tayinta shaqaalaha waxaanu tababaray inta barnaamijyada kala duwan ee maxadka hadday yihiin degree hadday yihiin dibloomoyin hadday yihiin koorsooyinka gaagaaban iyo hadday yihiin shaqaalaha aanu u diro Itoobiya ee soo qaata shahaadada heerka labaad ama master's degree-ga tiro shaqaalaha oo tiradoodu ay dhan tahay 3487 waxaad halkaa ka garan kartaa madaxweyne heerka iyo kobcinta shaqaalaha dawladdu intuu marayo iyadoo tirada shaqaaluhu imika ay tahay 16,000 marka 3,000 laga tababaray waxa weeyaan dadaal weyn oo la sameeyay laakiin waxaan ku talagelaynaa inta hadhayna inaanu muddada ugu dhaqsaha badan ku tababarno haddii Ilaahay dhaafo shaqaalaha noo hadhay tababaradu waxay u badan yihiin shaqaalaha xirfadlayaasha sida macallimiinta iyo caafimaadka maxadkan ujeedooyinka tababaradiisuna maadaama ay maamul tahay waxa weeyaan inta badan waxaan iyana ku rajo weynahay in tababarada oo jaamacadaha kale ay bixiyaan yana ay ka faa'iideysteen isla markaana tayada shaqaaluhu aanay ku koobnayn maxadkan oo qure jaamacadaha kale qarankuna ay qayb ka yihiin isla markaana barnaamijyada kale ee maxadku bixiyo madaxweyne waxaa ka mid ah tababaro ku salaysan baahiyaha dawladda oo la siiyo guud ahaan shaqaalaha iyo tababaro khaas ah oo aanu hay'adaha dawladda gaar u abaaro waxaan halkan maanta uga mahadnaqayaa hay'adaha gaarka ah ee shaqaalahooda u soo wada diray tababarada oo ugu horeyso wasaaradda macdanta iyo tamarta oo garwadan ka yahay wasiir Xuseen Cabdi Ducaale oo ay ku xigto wasaaradda arrimaha dibadda oo garwadan ka yahay wasiir aan inala joogin maanta waa Dr. Saad Cali Shire oo inaga maqan hawsha qaranku maqan waxa kaloo ka mid ah
maxkamadda sare oo aanu u wadno iminka qiimeyn warbixinteeda ay soo baxayso weegan isla markaana lagu tababari doono dhammaan howlwadeennada bahda cadaaladda mudane madaxweyne waxaa kaloo oo aanu tayeyn ku samaynaa ama aanu qiimeynaa qaab dhismeedka iyo qaabka shaqo ee hay'adaha dowladda oo iminka aanu gacanta ku hayno hay'adda wadooyinka iyadoo ay naga caawinayso hay'adda GIZ waxaan kaloo aad ugu mahadnaqayaa wasiirka howlaha guud oo hawsha qayb aad u lixaad leysna ka qaatay dhinaca kale tababarada dowladda dhexe oo qura maaha kuwaan ku koobannahay waxaanu tababaraa shaqaalaha dowladaha hoose oo aanu siino tababaro ay ka mid yihiin doorarka iyo mas-uuliyadaha mas-uuliyiinta kala duwan iyo xildhibaanada dowladaha hoose maamul daadejinta qorsheynta dowladaha hoose maareynta maaliyadda ablaableynta iyo kor u qaadidda dakhliga waxgadashada iyo maareynta agabka iyo alaabta dowladaha hoose maareynta shaqaalaha iyo hogaaminta dowladaha hoose dhammaan tababaradaas waxaanu aad uga mahadnaqaynaa wasaaradda arrimaha gudaha oo garwadeen ka ah isla markaana fududaysay inaan howlaha ka hirgelino degmooyinka mudane madaxweyne waxaa kale oo jira oo isna aan shaqaalaha aad uga faa'iideyn doonaa aan ugu hambaliyeyn doonaa taasoo ay ka dambeyn doonaan guddoomiyaha hay'adda shaqaalaha iyo wasiirka shaqaduba barnaamijka loo yaqaano kobcinta shaqada iyo shaqaalaha dowladda oo ay naga caawinayaan bangiga adduunku kaasoo aan sida ugu dhaqsaha badan u doonayno in isbeddel ku sameeyo shaqaalaha dowladda madaxweyne ardaydaa wax ka baratay maxadka ee ka aflaxay shaqaale fara badan baa ka mid ah waxaa maanta ku jira halkan oo ka aflaxaya taliyo ku-xigeenkii saddexaad ee ciidanka booliska oo taliyihiisa uu joogo mudane qaa'id waxaa kaloo ka mid a 2 xildhibaan oo ka kala socda guurtida iyo baarlamaanka waxaa ka mid a guddoomiyihii hay'adda NDC-da waxaa ka mid a xildhibaano golayaasha deegaanka ah shaqaale isugu jira shaqaalaha agaasimo waaxeedyada ah waxaa kaloo maxadka hore uga aflaxay shaqaale fara badan oo qaarkood iminka ay yihiin barasaabo qaar ay yihiin agaasimeyaal guud qaar ay yihiin wasiir ku-xigeenno qaarna ay yihiin maareeye ku-xigeenno mudane madaxweyne barnaamijyada maxadka uu bixiyo oo kala duwan aawadeed waxa ay ku salaysan yihiin dhammaan baahiyaha dowladda waxa ayna ku fadhiyaan maamulka maareynta iyo maaliyadda qayb ka mida weeyaan barnaamijyada maxadka qaybtani waxaa jira koorsooyin gaagaaban oo aan ku fadhiisino baahiyaha aan hore usoo sheegnay haddaba waxaa maxadka u qorshaysan inaanu casriyeyno maxadka oo baajka kan ku xiga oo aanu saa dambe imtixaankii gelidda ka qaadayno lagu bilaabo nidaam ku fadhiya kombiyuutarada taasoo u sahlaysa ardaygu inuu kala socdo kombiyuutarka dhammaan howlaha casharadiisa hadday tahay imtixaano hadday tahay natiijadii imtixaanka hadday tahay asaamanadii iyo hadday tahay xiriirka macallinkaba barnaamijyadaasi kuma koobna qaybta waxbarashada oo qura dhammaan maxadka waxaanu ku tayayn doonaa haddii ilaahay idhaahdo inaanu u guurno nidaamka loo yaqaano management oo aan doonayno dhammaan maxadka hawlihiisa kala duwan in lagu maamulo kombiyuutarka iyadoo xubin kasta oo ka mid a shaqaalaha hadday tahay dhinaca library-ga hadday tahay maamulka shaqaalaha iyo maaliyaddaba la isticmaali doono nidaam kombiyuutar ku fadhiya mudane madaxweyne waxaa qorshayaasha maxadka ka mid ah inta badan tababarada shaqaaluhu kuma koobna laakiin waxay ugu badan yihiin xarumaha dowladda taasoo ku taalla caasimadda waddanka ee Hargeysa waxaa noo qorshaysan inaanu sanadkan soo socda haddii ilaahay idhaahdo xarun ka yegleelo lagu tababarayo gobollada bariga caasimadda gobolka Togdheer isla markaana caasimadda labaad ee qaranka magaalada Xarunta muhiimadda xaruntaasi waxa weeyaan sidii kor loogu soo qaado loona tayeeyo gobollada horumarkoodu ka yar hooseeyo gobollada galbeedka ee qaranka gaar ahaan 3 gobol ee Sool Sanaag iyo Togdheer taa micnaheedu maaha inaanu ilownin gobolladii galbeedka laakiin laftirkoodu way ku xigaan qorshaha iyagana waan soo daboolnaa haddii ilaahay idhaahdo waxaanu wadi doonaa inaanu samayno xidhiidho caalami ah oo aanu maxadka ku soo xidhno jaamacadaha dibadda oo aan iminka xidhiidh la leenahay jaamacadda shaqaalaha Itoobiya iyadoo aanu sanadka soo socda ay noo qorshaysan yihiin ugu yaraan 2 jaamacadood oo kale inaanu kusoo xidhno shaqaalaha dowladda waxaa kaloo maxadka u qorshaysan in tababarada loo fidiyo madaxda dowladda hadday yihiin agaasimeyaasha guud hadday yihiin xubnaha golaha wasiirada kuwaasoo aanu dareemayno inay u baahan yihiin tababaro ka duwan kuwa shaqaaluhu u baahan yihiin oo loo qabto si xirfadaysan laguna qabto goob ka duwan goobta iminka loogu qabto shaqaalaha dowladda mudane madaxweyne ugu dambeyntii waxaan halkan ugu mahadnaqayaa shaqaalaha dowladda ee qalin jabinaya maanta
aan kula dardaarmayo in tacliintii ay muddada 3 sano soo baranayeen ay ku hirgeliyaan oo kor u qaadaan adeegga ay u fidiyaan shacabka waxaan kaloo u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo waxa oo hawleed maanta arkaysaan ay ugu horeyso waxa weeyaan jiritaanka maxadku qayb lixaad ka qaatay isla markaana ku hirgeliyay in maxadku uu noqdo mid ku shaqeeya hantida qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland kana dhigay mid joogta ah oo inuu kor u kaco mooyaan dib u soo noqonayn waxaan kaloo u mahadnaqayaa wasiirada wasaaradaha madaxtooyada maaliyadda wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradda macdanta iyo tamarta oo si gaar ah markasta ula shaqeeya maxadkan gudoomiyaha maxkamadda sare iyo guddiga barnaamijka dib u habeynta shaqada iyo shaqaalaha dawladda oo horkacayo wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وهجان هذه أيوب أسيء هاي قولت عمر سعيد